السلام عليكم dhalinyaro soo dhawaada waa macalin maxamuud cashkan wuxuu ka mid yahay casharada erayada ahaa aynu ka qaadanayna cilmi academy cashkan waxaanu ku baran doonaa 10 eray oo aad muhiim u ah haatan sabuurada waxaa ii saaran toddobadan markaynu dhammeeno aynu isla fahanayno saddex damana gadaal kaga dari doona insha allah okay good eray koowaad waa new leaf new waa cusayb leaf waa caleen yani caleen cusub balse inta badan eraygaas waxaa loo isticmaalaa qofka markuu noloshiisa isbedel ku sameynayo ama markuu uu sameynayo waxa la yiraahdo fresh start a fresh start yani wax cusub uu bilaabaya su'aalo nolosha kastoo ka rahlawday and then he wants to start afresh inuu markaa soo bilaabo noloshu raba marka new leaf baynu isticmaalinaa ama new beginning for example sanadkan waxaan rabaa inaan isbedelo waxaan leeyahay this year I am starting a new leaf. It means I am starting a new beginning. Bilaw cusub baan sameynaya. I hope you understood. Erayga labaad waxaa loo isticmaalaa waxaa la yiraahdaa nick waa informal. Nick waxaa la yiraahdaa waa xadid. Still ayay isku macno yihiin. Still waa xadid waa formal language. Nick iyadana waa xadid waana informal language. Isla eraygaas nick waxaa loo isticmaalaa markii aad wax yar isjirtid ama wax yar ay ku jiraan. A small cut. يعني وحيرة مركز مدي أما سكين اسكو سرتد أيادي هذا nick yes so for example حديثان كذا له don't nick anything it means don't steal anything وحبها حديث هدي small cat عم استعماله he has a small nick on his hand قعنتس وحير أو صرم أيو كله هيو I hope you understood أرجع لبعض وحلو آخرية نوش أرجع اسمه informal وحلو استعماله مركز لقى حلايو food cunto ama snacks yes snack food waa cunto snacks waxaa la yiraahdaa cunooyinka fudfudud ee qofku cafeteria ka soo qabsado xilliyada break yes tusaale shaqad ku jirtay ama iskuul baad jirtaa class baad ku jirtay break marka lagu siiyo nus saacaha break buskud iyo shaah iyo fruit waxa soo qabsataa sax si aad energy u heshid taa ayaa la yiraahdaa snacks marka noosh iyo snacks waa isku macno ama noosh iyo food For example, hey, let us go get some nosh. It means let us go get some snacks. But it's informal language. Erga afraad waa nuts. Nuts iyada laftirkeeda waa informal language. waa qof يعني crazy qof waalan silly. Yes, ergaas ay isku macneeyeen. Silly waa qof waalan. Nuts iyadana waa qof crazy ama waalan. For example, he went nuts. Ninka waxa waa waashawa. He went nuts. Erayga shanaad waxaa loo aqriyaa oa. So for example, doonida okay waxaas dooni baa laga wadaa loo dulqaadso soo fahmadayda geeda inta yani qofku okay qofka geedu inta geed baa inta ka soo baxayo dhinaca kalena geed marka waxaa lagu talagalay marka uu dabaalanayo oo dhanka u socdo geedaas inuu gadaal u celiyo row marka taa ayaa geedahaas waxaa la yiraahdaa oa yes يعني باسكيل كذا بادل بالاستعماله أما بادل مركي سو باسكيل انت وريجس وهرك وصل دوني دسه جيدا الاستعمال هيرك لو كلا يعني I hope you understand okay رجل لحد obstinate وقف مدح أذك someone who is very stubborn وحيسكم معنيهن stubborn يدنا ومدح أذيك قف مدح أذك the child was stubborn أنا جا wuxuu ahaa mid madax adag erayga toddobaad waa offender waa qofka sharciga buriyo criminal amal offender yes dad yani sharciga uu burburinaya ama qofsi uu sameynaya ama qof buu dilaya qofkaas ayaa la yiraahdaa offender good waa tirtiraya saddexda kale oo eraysa ugu darno erayga sideedaad aynu cashkan ku barnayno waa host waxaa la yiraahdaa qof in yani shaqada laga ceeriyo ama xafiis sare uu hayay ama positionka uu hayay awoodeed ama shaqada company uu hayay in laga ceeriyo yes for example they ousted the leader hogaamiyihii ayay shaqada ka ceeriyeen ama positionkiisa ka ceeriyeen they ousted the leader oust marka waa to remove that person from their power position or from their position of power okay erayga sagaalaad waa outlet dhan yar waxaa loo isticmaalaa for example store camal
She works at a clothing outlet. Waxay ka shaqeysaa meel lagu iibiyo dharka. She works at a clothes outlet. So outlet qaabkaas loo isticmaala. Adigu store camal meel wax lagu iibiyo. Alaabaha goods ayaa lagu iibiyaa services. Ereyga tobnaad u dambeeyo outrageous. Outrageous. Yes, outrageous. Outrageous waa adjective waxaa loo isticmaalaa something that's unacceptable, wax aan la aqbali karin ama shocking ka yaabsado. For example, alaabtii store-ka lagu iibinayay waa qaali. Marka waxaan leeyahay the price is outrageous. It means qiimahaas waa unacceptable, waa waxaan la aqbali karin. So maaragtay qaabkaas outrageous loo isticmaala. So ama his behavior was outrageous. Qaabkii uu dhaqamayay iyo dabeecadiisa waxay ahayd